haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. Sheekadani waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Alex wuxuu u shaqeyn jiray kambani weyn oo ku yaala magaalada, wuxuuna degnaa kambanigaas hotel u dhow. hotelkaasina waxaa isla degnaa asiga iyo xaaskiisa. subax kastana wuxuu u soo dheelmin jiray shaqada, galabtiina wuxuu imaan jiray hotelka. maalmaha ka mid ah shaqadii ayuu ku soo dahay, wuxuuna imaaday 4 saac iyadoo lagu dhow yahay. kadib hotelka ayuu imaaday, wuxuuna soo raacay wiishka. saacada ayuu fiiriyay, 4 saacna waxaa ka dhimneed keliya 8 daqiiqo. Alex wuxuu degnaa dabaqa 16aad, wuxuuna taabtay qaybta dabaqa 16aad. Alex siduu wiishku saarnaa hal mar ayuu wiishka istaagay, wuxuuna ku istaagay dabaqada 5aad. Alex wuxuu u maleynayay in qof dabaqada 5aad uu ka soo raaci rabo. kadib wiishkii markuu isfuray, wuxuu arkay meesha in ay qofna joogin. Alex arrinkaasi waa la yaabay, isla markiina wuxuu u qaatay in qof wiishka istaajiyay, kadibna sugi waayay meeshiina ka dhaqaaqay. Alex mar labaad ayuu xiray wiishkii, haddana qaybta 6aad ayuu ku istaagay. mar saddexaad ayuu xiray Alex, haddana qaybta 7aad ayuu ku istaagay. kadib Alex wuu xanaaqay. Alex asigoo xanaaqsan ayuu wuxuu ku yiri, waa kuma qofka albaabka nagu furfuray. Alex jaranjaradii ayuu fiiriyay, kadib mar afraad ayuu soo xiray wiishkii. laakiin wiishkii mar kale ayuu istaagay, wuxuuna ku istaagay qaybta 8aad. laakiin markaan sida hore way ka duwneed. Alex wuxuu arkay gabar yar oo 6 ilaa 7 jir ah. Alex gabarta gadaasheeda markii uu fiiriyay, wuxuu ka waayay wax waalidkeeda ah, cidna ma ila socon, kaligeed ayay gabarta socotay. Alex asigoo yaaban ayuu gabartii yareed wuxuu weydiiyay su'aal, wuxuuna ku yiri, aaway waalidiintaada? laakiin gabartii yareed ma u jawaabin. Alex wuxuu soo xiray wiishkii, laakiin gabartii yareed ayaa furtay wiishka. Alex asigoo yaaban ayuu fiiriyay gabarta, wuxuuna mar labaad ku dhahay, gabar yahay, aaway waalidiintaada? laakiin gabartii weli ma la hadlin, wayna ka aamusneed. kadib Alex wuu xanaaqay, wuxuuna ku yiri, CC camerada soo uma jeedid, waxaan kuu sheegayaa askarta haddii aad ila hadli weyso. kadib gabadhii yareed way hadlayna ku dhahday, waxaan sugayaa hooyaday. Alex dhinacaha ayuu fiiriyay, wuxuuna raadiyay gabartan hooyadeed, laakiin waxna muusan arkin. asigoo yaaban ayuu wiishkii soo xiray, si degdeg ayuuna kor ku soo aaday. kadib Alex markii uu wiishka isku soo xiray, wuxuu taabtay dabaqa 16aad. Alex wiishkii uu saarnaa hal mar ayaa cilad ku imaaday markuu marayay qaybta 11aad ama dabaqa 11aad sida u taqaan. nalkii ayaa inuu damo marna daarma bilaabay. Alex aad ayuu u naxay, kor ayuuna wuxuu ka arkay wax sida biyaha oo kale. waxaas sida biyaha oo kale u ekaa way madowaayeen, marna marka dambeysa way sii weynaanayeen. Alex aad ayuu u sii naxay. Alex markasta wuxuu ka fikirayay, maskaxdiisana ka guuxayay waxaan wixii ay yihiin. asigoo aad u fikiraya ayaa hal mar aad ayuu u naxay Alex. arrinkaas uu aad ugu naxayna waxay ahayd, miyaaradda wiishka ayuu wuxuu ku arkay qof garabka gacanta ka saarayo. Alex sababta uu naxay waxay ahayd, asiga keligiis ayaa wiishka soo fuulay, qofna maysan kula jirin markii uu wiishka soo fuulayay. kadib wiishkii hal mar ayuu socday, wuxuuna bilaabay in uu kor sii aado. kadib Alex wuxuu ku joojiyay wiishkii meesha uu marayay, si degdeg ayuuna wuxuu soo baxay wiishkii asigoo ordaya. laakiin waxaa ka hor imaatay gabadhii yareed, sida qof meesha ku sugayay oo kale.
Alex cabsidii ayaa kusii laba jibaarmatay. Gabadhii ayaa hal mar dhoola cadeysay. Alexna wuxuu la yaabay gabadhan ilkaheeda sidan u waaweyn. Gabadhii waxay ku tiri Soomaadan arkin hooyadii. Alex isla markii dib ayuu u fikiray. Waxa uuna ka shakiyay markii uu albaabka marna isfurayay marna isxirayay in ay soo fuushay habarta ay sheegayso gabarta yar. Alexna wuxuu u qaatay in aan la arkaynin gabadhan yar hooyadeed. Alex hal mar asigoo naxsan ayuu orod soo taabtay, wuxuuna si degdeg ku soo fuulay jaranjaradii. Si degdeg ayuuna ku imaaday dabaqii 14aad. kadibna hal mar ayaa nalalkii iswada daaray sida qof meesha lagu sugayay oo kale. Alex wuu sii naxay, laakiin orodkiisa weli muusan joojin, uuna soo orday. Markuu imaaday Alex 10aad, wuxuu ku soo orday gurigiisa, laakiin wuxuu arkay gurigiisa oo taagan gabartii yareed iyo hooyadeed. Alex aad ayuu u naxay, kadibna wuu ka dhuntay. Alexna wuxuu la yaabay sababta ay u daba dhigteen gabadhan yar iyo hooyadeed. Asigoo aad u baqaya, Alex ayaa hal mar wuxuu u soo cararay qaybta hoose. Alexna wuxuu doonayay in uu imaado qaybta security, laakiin albaabka laga baxayay markii fur uu isdhahay, albaabkii ayaa si xoog isku soo xiray. Alex sida uu meesha u tagnaa kadib ayuu wuxuu maqlay haween kabaheeda iyo gabar yar kabaheeda. Kadib albaabkii ayuu si xoog ku furay, wuxuuna u soo orday qaybta hoose. Sidoo kale Alex markiina uu soo degayay, nalalkii ayaa si automatic isku daarayay. Kadib Alex markuu qaybta hoose u soo degay, wuxuu imaaday qolka security, laakiin ma joogin qofkii ilaalinayay qolka security. Alex asigoo la yaaban waxa ku dhacaya ayaa hal mar uu naxay, sababtoo ah wuxuu arkay albaabkii dabaqa oo taagan gabadhii yareed iyo hooyadeed. Laakiin markaan sida hore way ka dubneed, gabadha yar iyo hooyadeed way xanaaqsanayeen. Alex asigoo aad u dhididaya ayaa waxa uu imaaday ninkii security. Kadib Alex wuxuu u tilmaamay meesha gabadha yar iyo hooyadeed ay taagan yihiin, laakiin hal mar ayay ka tageen gabadha yar iyo hooyadeed. Kadib Alex security ayaa keenay gurigiisa, wuxuuna arkay xaaskiisa oo ku sugaysa albaabka. Sidoo kale xaaskiisana waxay u sheegtay in ay albaabka loo soo garaacay. Kadibna albaabka markii loo soo garaacay way ka shakisay, sababtoo ah Alex xaaskiisa waxay ogeyd in Alex markasto oo si tartiib ah ku soo gali jiray albaabka, iyadoona albaabka uu soo garaacay. Kadib Alex xaaskiisa waxay ka fiirisay kaamirada qofka albaabka soo garaacaya, laakiin cidna maysan arkin. Mar labaad ayaa albaabkii la soo garaacay, mar saddexaad ayaa la soo garaacay, kadib mar afraad ayaa haddana la soo garaacay. Kadib waxay wacday qaybta security. iyadoo wacaysa ayaa waxay ka aragtay kaamiradii naag wajigeeda dhan buluug isku bedelay, xididana wada aha. aad ayay u naxday Alex xaaskiisa. sidoo kale naagta indheeda guduud ay ahaayeen. kadib teleefankii ayay saartay Alex xaaskiisa, waxayna daartay nalka. mar labaad ay waxay wacday Alex xaaskiisa booliiska. Alex markaas wuxuu ku soo ordayay qaybta hoose ee security. hal mar Alex xaaskiisa way weysay dadkii meesha taagnaa. kadib subaxii markii la gaaray, Alex wuxuu u imaaday security, wuxuuna ku yiri xali kaamirada waxay duubtay itus. laakiin Alex markii uu fiirsaday CC kaamirada waxay duubtay arrinkii uu indhiisa ku arkay way ka dubnaayeen wixii ay kaamirada duubtay. sababtoo ah Alex wuxuu kaamirada ka arkay markasta in uu asiga wiishka joojinayay, asigana albaabka furayay, isla asigana albaabka xirayay. wixii uu u maleynayay in uu gabar yar la hadlayo maysan ahayn, qofna maysan joogin meesha.
xataa waxaa la yaab ah markii uu u maleynayay Alex in uu wiishka ciladooway in uusan wiishka ciladoowin uu kaligiis Alex iska cararay. kadib Alex waxaan dhacay ayuu la yaabay sababtoo ah wax kasta oo indhihiisa ku arkayay way ka dubnaayeen wixii ay kaamirada duubtay. kadib security ayaa Alex ku qoslay wuxuuna ku yiri adiga waxaa tahay qof biiq ah oo fulay ah. Alex ilaa hadda wuu ka shakisan yahay waxa ay duubtay CC kaamirada wuxuuna la yaaban yahay gabartan iyo hooyadeed waxa ay u daba dhigteen. 내가 포기하고 싶을 땐 넌